بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaanu meeshan ka bilaabaynaa darsigeeni tafsiirka quraanka kariimka casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 45 ee min suurati al-hijr kamida ilaahi subhanahu wa ta'ala aayaddan wuxuu nagu leeyahay innal muttaqiina fi jannatin wa uyun innal muttaqiina dadka ilaahay ka cabsada fi jannatin jannooyin dhexdeed bay ahaadeen iyo wa uyunin ila janno oo burqanaya bay dhex gelayaan oo biyaha salsabiilka la yiraahdo iyo malabka iyo khamrada iyo caanuhu ka burqanayaan ahlu jannaha waxa loo dhihi doonaa jannada markay gelayaan rabbi ha nagu daree udkhuluha jannada gala bisalaamin nabadgelyo adinkoo ku dheehan oo aafo iyo dhib oo dhan ka nabad galay jannada ilaahay dalaq ilaahda aaminiina xaalaatiin kuwa aamin ah oo dhimasho ka aamin ah oo jirro ka aamin ah oo duqow ka aamin ah oo xanaaq ka aamin ah wax walba oo xun ay ahlu jannuhu aamin ka noqonayaan kuwa Allah nagu daro ahlu jannaha ilaahay wuxuu ku tilmaamay u fiirso ahlu naarkii baan xalay aayadaheena ugu dambayday uga soo hadalnay toddobada naarood baan uga soo hadalnay ahlu naarka sida loo cadaabayaan ka soo hadalnay naaraha sida ay u kala leeyihiin baan ka soo hadalnay oo u kala dhib badan yihiin haddana aayaadkan ilaahay wuxuu noogu sheegayaa jannada iyo ahlu jannaha waxay helayaan maxaa yeelay quraanka wuxuu ka hadlaa ar-rajaa wal khawf markii cabsi laga sheekeeyo waxaa lagu sheegayaa nicmadii iyo jannadii ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala wanazacnaa waxaanu siibnay maa fii suduurihim ahlu jannaha xabadyaalkooda wixii ku sugnaa oo min qillin urgunud iyo xaqdi xasad ah qalbiga bini aadamka waxyaabaha gala oo dhan ahlu jannaha waa laga mayray sida xiqdiga albaqdaa washaxnaa walxasad iyo kuwa la midka ah ikhwaanan xaal ay yihiin kuwa walaalo ah calaa sururin sariira dushood xaalay ahaadeen aanu siibnay mutaqaabiliina kuwa isi soo qaabishan xaalay yihiin saddexdaaba waa la xaalaynaya laa yamassuhum ahlu jannaha taaban mayo fiihaa jannada dhexdeeda nasabun wax dhibaato la yidhaahdo arki maayaan wamaa hum ahlu jannuhu ma ahaanin minhaa jannada xaggeeda bimukhrajiina kuwa laga soo saaro abadan weligood jannada laga soo bixin maayo waxay leeyihiin janno kuwaarid weligood dambe aysan ka soo baxaynin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi nabbi uwaran cibaadii aniga addoommadayda annii anugu alqafuuru midka dembi dhaafidda badan inaan ahay alraxiimu ee naxariista badan u sheeg nabi moxamedow addoommadayda in aan ahay buu ilaahay leeyahay midka dembi dhaafidda badan oo raxmadda badan oo naxariista badan u sheeg baa nabiga lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa anna cadaabii aniga cadaabtayduna huwa asagu alcadaabu alaliimu cadaabkii xanuunka badnaa inuu yahay addoommada u sheeg ha ka baqeen cadaabtayde wanabi'hum addoommadayda u sheeg can dayfi ibraahiima nabi ibraahim martidii u timid uga sheekay id waqti ka sheekay oo xus dakhaluu calayhi nabi ibraahim martidu ay u soo galeen malaa'igtii qowmuluud inay halaagaan u socotay weeye martidaani markay u soo galeen nabi ibraahim faqaaluu waxay dhaheen salaaman nusallimuka salaaman waan ku salaamaynaa nabi ibraahimow qaala nabi ibraahimna wuxuu yidhi nabi ibraahim baa wuxuu yidhi innaa annagu minkum xaggiina wajiluuna waanu ka cabsanaynaa qaaluu waxay dhaheen laa towjal ha cabsan innaa annagu nubashiruka waxaanu kuugu bishaaraynaynaa bighulaamin wiilkaasoo caliimin cilmi badan nabiyullaahi ibraahim markaa waa waayeel qaala wuxuu yidhi abashartumuunii oo ma ii bishaarayseen calaa an massaniya alkibaru bacda an massaniya alkibaru markii weynin iyo duqownima i taabatay dabadeed miyaad ii bishaarayseen oo maanigoo waayeelahoo waqtigaan marayaan ilma dhalayaa fa bima tubashiruuna oo maxaad iigu bishaaraynaysaan waaba cajiibe qaaluu markaasi malaa'igtii waxay dhaheen basharnaaka bilxaqi xaq baan kuugu bishaarayn ee falaa takun ha noqon min alqaanidiina kuwa quusta
oo raxmadda rabbi ka sabra ha ka mid noqon. qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim waman yaqnadu ay walaa yaqnadu waman yaqnadu yaa ka quusanaya maba ka quusto min raxmati rabbihi rabbigiisa raxmaddiisa ila daalluuna kuwa baadiyoobay mooye qof baadi ku dhacay mooye qof kale raxmadda ilaahay kama quusanayo. qaala nebi ibraahim baa wuxuu yidhi famaa khadbukum sha'nigiinna iyo xaalkiinu waa maxay bal ii warrama ayuha almursaluuna kuwaan la soo diray oo malaa'igta ilaahay ahay maxaad doonaysaan? qaaluu markaasi waxay dhaheen innaa annaga ursilnaa waxaana loo soo diray ilaa qowmin qoomkaasoo mujrimiina dembilayaal ah. qoom mujrimiina baan rabnaa inaan halaajinno, laakiin nabi luud iyo labada gabdhoodow dhalay la halaagi maayo ilaa aala luudin nabi luud ahaladiisa mooye. innaa annagu lamunajjuuhum waanu badbaadinaynaa ajmaciina gebi ahaan nabi luud iyo inta raacday la cadaabi maayo. laakiin gabadha uu qabo xaaskiisa ahlu naarkii ka mid tah ila imra'atahu nabi luud gabadha uu qabo maahane. qadarnaa gabadhaas waan qadarnay oo waan xukunnay innahaa iyadu la min alqaabiriina kuwa baaqi ku noqonaya halaaga oo la halaagayay ku jidha. falammaa jaa'a aala luudin nabi luud ahaladiisa markay u yimideen almursaluuna rusushii la soo diray waa malaa'igtii, qaala nabi luudaa wuxuu yidhi innakum adinku qowmun baa tihiin qoomkaasoo munkaruuna la inkiray war waa idinla yaabanaha. qaaluu waxay dhaheen bal ji'naaka waxaan kuugu nimid bimaa shaygii kaanuu ay ahaayeen qoomkaagu fiihi maagaa yamtaruuna kuwa ku shakiya. wa aataynaaka bilxaqi xaq baan kuula nimid wa innaa annagu la saadiquuna run baan sheegaynaa. fa asri dheelmi oo socodsii biahlika ahalkaaga fa asri la soco oo macnaha la guuray biahlika ahalkaaga biqidcin qayb oo min alleyli habeenka ka mida la guuray. wattabic raac adbaarahum gadaalkooda soco walaa yaltafid yowsan milicsan minkum xaggiinna axadun axad idinka mida gadaal yuu soo fiirin. wamduu taga xaysu tu'maruuna meesha laydin amray waddanka shaam aada. waqadaynaa ilayhi nabi luud waxaanu u waxyoonnoon u xukunnay daalika alamra amarkaas oo ah anna daabira haaulaa'i qoladaa ciribtooda maqduucun in la goynayo musbixiina xaalayin kuwa waa beriisanaya. wa jaa'a ahlulmadiinati qoladii magaalada joogtay waxaa u yimid macnaha qoladii magaalada joogtay baa yimid yastabshiruuna xaalay bishaaraysanayaan. qaala nabi luudaa wuxuu yidhi inna haaulaa'i kuwaani dayfii martidayda weeyi ee falaa tafdaxuuni war hay ceebaynina wattaqullaha ilaahay ka cabsada walaa tukhsuuni hay hoojinina. qaaluu markaasi waxay dhaheen awalam nanhaka oo sowkaama aanu reebin canilcaalamiina caalamka xaggooda. qaala wuxuu yidhi haaulaa'i kuwaani banaatii gabdhahaygii weeye guursada in kuntum haddaad tihiin faaciliina kuwa samaynaya oo doonaya dumar gabdhahayga guursada. lacamruka nabi muxamedow noloshaadan ku dhaartee ilaahay wuxuu leeyahay innahum gaaladaani la fii sakratihim wareerkooda dhexdiisa ay yacmahuuna ay macnaha waxa weeye ku laalaabanayaan. fa akhadathum gaaladii waxaa qabatay assayxatu qayladii mushriqiina xaalay yihiin kuwa qorax baxsanaya. fajacalnaa waxaanu yeelnay caaliyahaa magaalada dhinaceedii kore saafilahaa hoosteedii baanu yeelnay. wa amdarnaa calayhim korkooda waxaan ku roobaynay xijaaratan dhagxaan oo min sijiilin naar kulul ka ahaatay dhooba la dubay oo dhagax ahoo kulul oo naareed ka ahaatay. inna fii daalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la aayaatin calaamooyin lilmutawassimiina kuwa wax fiirfiiriya calaamooyin baa ugu sugan. wa innahaa magaalooyinkaasu la bisabiilin wadda ayay ku sugan yihiin muqiimin sugan. inna fii daalika arrinkaa halaagaa dhexdiisa waxaa ahaaday la aayatan calaamo lilmu'miniina mu'miniinta igu sugnaatay. wain kaana asxaabu laykati wainhu sha'niye kaana waxay ahaadeen asxaabu laykati kaynta ama hawdka kuwii u saaxiibada ahaa waa qoomkii nabi shucayb la daalimiina kuwa daalimiina bay ahaadeen. faintaqamnaa minhum xaggooda waan ka aargudannay wa innahumaa qowmu shucayb iyo qowmu luud
labiimaamin waxay ku sugan yihiin buu ilaahay leeyahay imaam bay ku sugan yihiin oo imaamka waxaa looga jeedaa bimacnaa waddo mubiinin cad bay ku taagan yihiin oo labadooduba waddo cad la dariiqin waddo cad baa macnaha loo sii maraa weeyaan walaqad kadaba asxaabu alxijri almursaliina walaqad kadaba waxay beeniyeen labadooduba waxay ahaadeen labiimaamin imaam bay ahaadeen bimacnaa dariiq bay ahaadeen waadixahoo muuqda kaasoo mubiinin cad walaqad kadaba waxay beeniyeen asxaabu alxijri godka kuwii u saaxiibka ahaa macnaha xijriga kuwii u saaxiibka ahaa meesha xijriga la yidhaahdo almursaliina rusushii ilaah bay beeniyeen waa togga kuwii u saaxiibkaa xijrigu waa waadi ama tog ay degi jireen baa xijri la yidhaahdaa wa aataynaahum waxaan siinay qoomkaa qowmu hamuud la yidhaahdo aayaatina aayaadkeenna mucjizaadka ahaa fa kaanuu waxay ahaayeen canhaa aayaadkaa mucridiina kuwa ka jeesta wa kaanuu waxay ahaayeen yanxituuna kuwa qora min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo ayay ka qori jireen aaminiina xaalay yihiin kuwa aamina fa akhadathum waxaa qabatay assayxatu qayladii musbixiina xaalayhin kuwa waa beriisanaya famaa aqnaa kama deeqin canhum xaggooda maa shaygii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa shaqaysta waxba kuma tirin wamaa khalaqna asamaawaati samada ma aanu abuurin waalarda dhulkana ma aanu abuurin wamaa baynahumaa inta u dhaxaydana ma abuurin ilaa bilxaqi xaq ayaan ku abuurnay wa ina asaacata saacadda qiyaamu la'aatiyatun way imaanaysaa fasfaxi safxa aljamiila fasfax dhaaf oo macnaha iska saamax nabi moxamedow oo ka jeeso assafxa dhaafidii iyo saamixidii aljamiila wanaagsaneed inna rabbaka rabbigaagu huwa rabbigaasu alkhallaaqu waa midka abuuridda badan alcaliimu ee cilmiga badan walaqad aataynaaka nabi moxamedow waxaan ku siinay 7 oo min almathaanii midii la labalabeeyey oo la soo celcelinayey ka ahaatay waalqur'aana baan ku siinay qur'aankii alcadiima weynaa laa tamudanna ha taagin oo ha taagin caynayka labadaada indhood ilaa maa maladii shaygii matacnaa aan ugu raaxaynay bihi maaga aswaajan sinfiyaal iyo nuucyo oo minhum gaalada ka mid a walaa taxzan calayhim dushooda ha ka murugoon waqfid janaaxaka garabkaaga u raarici lilmu'miniina mu'miniinta u raarici waqul waxaa tidhaa nabi moxamedow innii anugu annadiiru mid digaya baanahay almubiinu ee cad digiddiisu caddahay kamaa anzalnaa qur-aanka dushaada waa ku soo dejinay nabi moxamedow kamaa anzalnaa sidii qur-aanka aan ugu dejinno oo kale cala almuqtasimiina kuwii qaybsanayey oo markaa waxa weeye muqtasimiinta ahaa oo markaa qur-aankii dhowr qayb kuwii muqtasimiinta ahaayuu qaybsanayo macnaha waxa weeye qaybo u kala baxayay aladiina kuwaasoo jacalu lqur'aana qur'aanka ka yeelay cidiina gaballo iyo ajzaa fa wa rabbika rabbigaagan ku dhaartee lanas'alannahum gaalada weydiinay oo weydiinay ajmaciina dhammaan camaa shaygii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal fala makhluuqa waa la su'aalayaa fasdac la jahar bimaa tu'maru shayga lagu amrayo kor ula jahar wa acrid ka jeeso canilmushrikiina gaalada ka jeeso innaa annagu kafaynaaka waxaan kaa kaafinaynaa kafaynaaka almustahzi'iina kuwa kugu jeesjeesaya annagaa kaa kaafinayna aladiina kuwaasu yajcaluuna yeeleen maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan yeeleen ilaahaasu aakhara kaleeto fa sawfa dib dambe yaclamuuna gaaladu ogaa doonaan wixii ku dhaca walaqad xaqiiqanimee naclamu waxaan ogsoonnahay annaka adigu yadiiqu sadruka xabadkaagu inuu cidhiiryoomayo bimaa yaquuluuna gaaladu waxay leeyihiin oo ku cidhiiryoomayo fasabbix tasbiixsan nabi moxamedow bixamdi rabbika mahadda rabbigaa adigoo ku dheehan wa kun ahaw min assaajidiina kuwa sujuudsanna ka mid noqo wacbud rabbaka ilaahaaga caabud xataa ya'tiyaka alyaqiinu ilaa yaqiinta ama dhimashadu kaaga timaado dersigeenna caaw wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 45 ee min suurati alxijri ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu uga hadlayaa dadka wan wanaagsan oo ahlu jannaha ah ilaahay wuxuu leeyahay ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsada
fii jannaatin jannooyin dhexdood bay ahaadeen iyo wa cuyuunin ila janno dhexdood. dadka ka baqa faaxishada gaalnimada aakhiro waxay ku sugan yihiin beero janno oo aad u qurux badan iyo ila janno biyo ka burqanayaan. waxaa loo dhihi doonaa ahlu jannaha udkhuluuhaa jannada gala bisalaamin nabadgelyo xaalaad ku dheehan tihiin adinkoo ku dheehan nabadgelyo oo ka nabadgalay wax walba oo dhib ah aafo oo weligeen aan jira idin qabanayn weligeen aan dhibaato arkaynin weligeen aan murugoonayn weligeen aan tiiraanyoonayn jannada gala aaminiina xaalaad tihiin kuwa aamin ah oo nicmadaanu inay idinka dhammaato aamin baad ka tihiin weligeed idinka dhammaan mayso. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ahlu jannaha waxaa laga siibayaa wax walba oo dadka adduunyada jooga ay iska dareemaan qalbigooda. adduunka marka la joogo qalbiga xiqdi baa soo gelaya, caraa soo gelaysa, uurgunud baa soo gelaya, xasad baa soo gelaya, kibir baa soo gelaya, tacajub baa soo gelaya. waxa oo dhan ahlu jannaha qalbigooda asifaatu almadmuuma tilmaamaha xun oo dhan waa laga dahiray baa la yidhi. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wanazacnaa waxaanu siibnay maa fii suduurihim ahlu jannaha xabadyaalkooda wixii ku sugnaa oo min qillin xiqdi ah ama uurgunud ah qalbiga lagu qaban lahaa waan ka siibnay. jannadii bay ku jiraan ikhwaanan xaal ay yihiin kuwa walaalo ah baan ka siibnay. waa walaalo kulligood isjecel wax xumaataa dhex mari mayso. kownuhum ikhwatan mutaxaabiina waa walaalo isjecel laa yukadiru safwuhum shay. welibaa ilaahay wuxuu leeyahay calaa sururin sariiro dushood xaalay ahaadeen ahlu janno sariiro jannay dul saaran yihiin mutaqaabiliina xaalay isi soo qaabilayaanoo wejan liwejin kafool kafool markay sheekaysanayaan waa isi soo qaabilayaan. imaamu mujaahid wuxuu yidhi dhabarka isxijin mayaan siyaadatan fi lunsi waalikraam. cabdullaahi bni cabbaas ilaahay raadi ka noqday wuxuu yidhi calaa sururin min dahabin mukallalatin bidurri walyaaquut wasubarjad. ahlu jannuhu waxay ku jiraan sariiro dahab ka samaysan oo jawhar lagu qurxiyey. marka sariirahoodaas bay macnaha ay dul jiifaan way si soo qaabilahayaan waa faraxsan yihiin wax dhibaataa weligood ma dareemahayaan halkaabay ku jiraan. waxaa la yidhi nuucaabay ahaanayaan baa la yidhi nuucaas bay ku jirayaan weeyaan. markii ay damcaan inay kala tagaanoo nin walba gurigiisa u laabto sariirtiisa ayaa la wareegaysa oo meeshii geynaysa soconaysa weeyaan. asagoo weliba qofkii la sheekaysanayo oo soo qaabishan ay sariirtu meeshay u socotay ay u qaadaysaa baa la yidhi. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala laa yamasuhum ahlu jannaha taaban mayo fiihaa jannada dhexdeeda nasabun wax dhibaato ah iyo daal iyo noog midna ma dareemayo. wamaa hum ahlu jannuhu ma ahaanin minhaa jannada xaggeeda bimukhrajiina kuwa laga soo bixinayo weligood laga soo bixin mayo laga cayrin mayo. nicmadaas bay ku waarayaan weligood waa ku jirayaan liannahaa daaru safaa'i waasuruur baa la yidhaahdaa. waa gurigii faraxa iyo waxa weeye daa'im noqodka jannadu ilaahay ha noo kasee waa gurigaa wanaagsan weligood laga soo saarin maayo. nabi cibaadii anniya ana alkafuuru araxiim. waxaa la yidhi aayaddan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayuu ilaahay kula hadlayaa subxaanahu wa tacaala. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yidhi addoommadayda u sheeg nabi cibaadiya anniya waad akrin kartaa ama nabi cibaadii annii ana alkafuuru araxiim wa anna cadaabii huwa alcadaabu alaliim. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa la hadlay. aayaddaanna waxaa la yidhi markay soo degoonaysay oo nabigeenna lagula hadlaya calayhi salaatu wasalaam waxaa la caddeeyey nabigeennu asxaabta ayuu maalin u yimid baa la yidhi ayagoo qoslaya faqaala markaasu wuxuu yidhi atadxakuuna wa bayna aydiikum aljannatu wannaaru. ma qoslaydaan buu yidhi hortiinnana janno iyo naar ba ahaatay. macnaha janno iyo naar baa idinka horraysa. qofka waxa weeye jannada shaqaysanaya waa qof mar walba naarta ka murugaysan. markaasaan asxaabtii waxa weeye xogay bay murugoodeen. aayaddan baa looga farax geliyoo nabiga waxaa lagu soo dejiyey nabi cibaadii anniya ana alkafuuru araxiim. u sheeg baa la yidhi addoommadayda in aan ahay mid dembi dhaafid badan oo raxiim ah. ilaahay waa raxiim waa raxmaanu raxiim weeye waana raxmaan waana raxiim ilaahay.
wamaca dalika wahwa shadiid alciqaab baa la yidhi qofka wuxuu ilaahay u naxariistaa cadaabtiisa ka khawfa maxaa yeele waxaa la yidhaha raxmadda ilaahay 100 qaybood oo raxmadda ilaahay ah oo ilaahay soo dejiyaa la yidhi subxaanahu wa tacaala 100kaas qaybood oo raxmadda ilaahay oo ilaahay soo dejiyey mid walbaa dhulka iyo cirka waa ka weyntaha baa la yidhi dhulka iyo cirku intay isku jiraan oo kaleeto kama ay yara baa la yidhi 99 qaybood ilaahay agtiisa ay ku sugan tahay baa la yidhi subxaanahu wa tacaala 99 qaybood oo raxmadda ilaahay ka mid a 99kaas qaybood oo raxmadda ilaahay ka mid a waxaa loo kaydiyey dadka mu'miniinta ah maalinta qiyaamo iyagaa lagu amaalmarinaya ilaahu nagu dar halkii raxmad oo ilaahay adduunyada oo dhan waxaa loo soo dejiye nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hal naxariis oo kale ah adduunka oo dhan hal naxariisaa loo soo dejiyey halkaa naxariis oo adduunyada oo dhan loo soo dejiyey xayawaanka xataa aan waxba garan oo bahaa'imta mayeeraanka ah raxmadda ilaahay baa gaartay buu yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam qayb bay ka qaadatay raxmaddii ilaahay baa asiibtay markaas bay canugay dhashay qoobka xataa inay wax ku dhifato uma ay ogola buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam halkaa raxmo oo ilaahay dhulka u soo dejiyey raxmadda ah ayaa makhluuq oo dhan lagu wada abuuray qalbigooda oo iskugu naxariistaan raxmaddii ayada aheed baa lagu darayaa 99kii qaybood maalinta qiyaamo 100kaa naxariisood waxaa lagu gaar yeelay oo aakhiro iska leh dadka mu'miniinta ah oo ilaahay addoommadiisa ah nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nabbi cibaadii waxaa lagu yidhi nabbi u khabar cibaadii ama cibaadiya addoommadayda annii anugu ama anniy anugu ana anugu alkafuuru midka dembi dhaafidda badan ina ahay alraxiimu ee naxariista badan ilaahay waa kafuuru raxiim haddii waxa weeye qofku uu yidhaahdo yaa waasica almakfira yaa arxama araaximiin yaa tawaab atuubu calayka hadduu ilaahay qofku gacmaha u taagto oo kafaaru raxiimka ilaaha uu gacmaha u taagto ilaahay waa aqbalayaa subxaanahu wa tacaala wa huwa aladii yaqbalu atawbata can cibaadih wayacfuu can asayi'aat wayaclamu maa tafcaluun nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu gacmaha u taagan jiray ilaa la arko xataa yuraa bayaada ibdayhi sala allahu calayhi wasalam gacmaha ayuu nabigu ilahay u taaganayay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam 100 mar buu ku laalaaban jiray maalin walba toobakeenka iyo istikfaarta rabbi kfir lii watub calaya inaka anta tawaabu raxiim sala allahu calayhi wasalam wax dembiyaan isagoon lahayn marka ilaahay waxa weeye waa kafuuru raxiim u sheeg addoommahaygaa lagu yidhi waxaad kaloo addoommahayga u sheegtaa nabi moxamedow wa anna cadaabii huwa alcadaabu alaliim wa anna cadaabii aniga cadaabkaygu huwa asagu alcadaabu cadaab weeye cadaabkaasu alaliimu almu'limu ee qofka xanuujinaya oo aad u daran liman asara cala almacaasi waaddunuub qofka macaasida joogto ka dhigta cadaabta ilaahay baa xanuujinaysa rabbi hanaga badbaadiyo wanabi'hum can dayfi ibraahiima id dakhaluu calayhi faqaaluu salaama waxaa la yidhi meeshaan waxaa nooga bilaabanaysa dhowr nabi baa laga qisoo doonaa waxaa laga qisoo doonaa nabiga la yidhaha nabiyullaahi ibraahim waxaa kaloo laga qisoo doonaa nabiga la yidhaahdo nabiyullaahi luut iyo qoomkiisii qowmu luut waxaa kaloo laga qisoo doonaa nabiga la yidhaha nabi saalix iyo qoomkiisii qowmu thamuud waxaa kaloo laga qisoo doonaa nabiyullaahi shucayb qoomkiisii halaaga ku dhacay ambiyadaasoo dhan baa naloo sheegi doonaa oo aan suuradda ku qaada doonaa qaybaheeda kaleeto marka nebi ibraahim iyo nabiga la yidhaahdo nabiyullaahi luut waad garanaysiin walaalayaal nabiyullaahi ibraahim iyo nabi luut maxay isku ahaayeen nabi luut iyo nebi ibraahim nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi luut nebi ibraahim baa wuxuu ahaa adeer buu u ahay nabi luut calayhi salaam walaalkiis baa dhalay waa ibnu akhiihi baa la yidhaahdaa nabiyullaahi luut wuxuu ahay qofkii ugu horreeyey oo nebi ibraahim rumeeya isaga iyo gabadh ee xaaskiisii uu qabo saara ayay ahaayeen dadkii ugu horreeyey oo nabiyullaahi macnaha ibraahim rumeeye bay ahaayeen nabiyullaahi luut nuucaa buu ahaa nebi ibraahim waxaa la yidhi waan soo marnay suuradda la yidhaha suuratulcankabuud baan ku soo marnay wuxuu markii hore laga soo saaray waddanka ciraaq waddankaa markii lagu dhibaateeyey buu ka hijrooday waa kii yidhi fa aamana lahu luudun wa qaala innii muhaajirun
ilaa rabbii innahu huwa alkafuuru araxiim waan ka tegayaa buuri anigu waddankan waa ka hijrooday waa ka tegey waddankaa ilaahay dartiisa uga tegey waddanka ciraaq buu ka tegey waddanka falastiin iyo shaam halkaabay aadeen marka nabiyullaahi ibraahim wuxuu degay waddamadan shaam ayuu isagu joogay nabiyullaahi luudna magaalo la yidhaahdo saduum la yidhaahdo daal la akriyo waddankaas ayuu joogi jiray laba nabi oo isku waqti ah oo laba waddan kala joogta hadda rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ambiyada ilaahay uga bedelnaay keligiisaa ummadoo dhan loo soo diray nabi kale oo laga soo garab diray ma jirin nabi ka dambeeyaana ma jirin nabi ku waqtiya oo lasoo diri karaana ma jirin nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam keligii buu ahaa ummadoo dhan baana loo soo diray laakiin ambiyadii horeeto isla hal waqti isla hal siban ayaa dhowr waddan waxaa kala jooga ambiyo lasoo diray tusaale ahaan nebi ibraahim waddanka shaam buu joogaa nabiyullaahi luud isla waqtigaa wuxuu joogaa waddan kaloo la yidhaahdo saduum ayuu joogaa labadaa nabi mid walba qoom gooniya baa loo diray marka nabiyullaahi ibraahim waxa weeye sidaabuu ahaay nabiyullaahi ibraahim aad baa loo dhibaateeyey waa la beeniyey nabiyullaahi luudna sidoo kaleeto ugu dambaystii markii qowmu luud ilaahay uu go'aamiyey in la halaago malaa'ig baa la soo diray malaa'igtaas laba arrimood baa loo soo diray nabiyullaahi ibraahim in ay sii maraan oo taransad ahaan u sii maraan una bishaareeyaan oo ay ugu bishaareeyaan nabiga la yidhaahdo nabiyullaahi isxaaq inay ugu bishaareeyaan qaybta labaadoo loo soo dira waxa weeye nabiyullaahi luud qoomkiisa qowmu luud la yidhaahdo oo aad u falfalxumada badnaa in la halaajiyo marka malaa'igtii way soo baxeen nabi ibraahim bay soo mareen nabiyullaahi ibraahim markay u yimideen baa la yidhi calayhi wa calaa nabiyina afdalu salaati wasalaam nabi ibraahim markay u yimideen nabi ibraahim waa salaameen baa la yidhi markay u soo galeen markaasuu salaamti ka radiyey martibuu u haystaa malaa'igtaasu dhowr bay ahaayeen malakul jibriil baa ka mid ahaa israafiil baa ka mid ahaa malaa'ig noocaa bay ahaayeen waxaa la yidhi waa malaa'ig aad u malayso dhallinyaro aad u qurqurxoon haybadda ka muuqanaysa waad la yaabaysaa shubbaan ah markaaba waxa weeye ma garanayo waktiga ay u imaanayaan waa wakti weliba waxaa la yidhi aan martidu imaan jirin nabiyullaahi ibraahim meelgeesa buu deganaa waa soo galeen waa fadhiisteen markaabuu ordayoo dibiba u soo qalay fa jaa'a bicijlin samiin dibi shiilan oo cayilan oo macnaha uu soo qalay ayuu u keenay baa la yidhi oo aad u cayilan markaasuu u soo dhoweeyey markii uu u soo dhoweeyey cuntadii ma cunayaan ilaa waa malaa'iga ma ogta malaa'igta ilaahay waxaa la yidhaahdaa laa ya'kuluun walaa yashrabuun wax ma cunaan waxna ma cabaan waquutuhum altasbiixu wataxmiidu malaa'igta cuntadoodu waa alxamdu lilaahi iyo subxaana allah cunto kale ma cunaan malaa'igtu ilaa maalinta qiyaamo laga gaaro ma dhimanayaan sideenoo kaleeto adduunyada malaa'igtu ku dhiman mayaan laakiin maalinta qiyaamo markii la gaaro markaabay malaa'igta ilaahay dhimanayaan malaa'igta ilaahay waxay uga bedelan yihiin ummadda ayagu wax ijtihaaba ma lahan tanaasul ma leh lama odhan karo waa dumar lama odhan karo waa rag waa bini aadamba lama dhihi karo waxay kaloo uga bedelan yihiin insiga dembiba kama dhacaba weligood wax dembi la yidhaahdo kama dhaco ilaahayna ma khilaafayaan malag walbaa meeshii loo diray ayuu waxa weeye uu ku hagaagayaa hal malag oo kale ah koonka waxa jooga o dhan haddii loo soo diro in uu halaajiyo oo ilaahay fasax u siiyana waa ka awood badan yihi malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay siduu awood u siiyey marka nabiyullaahi ibraahim malaa'igtii waa martiqaaday martiqaadkii markuu usoo dhoweeyey maba cunayaan markaasuu cabsi muujiyey waxay dhaheen ha cabsan annaga waxaana loo soo diray inaan kuu bishaarayno wiil cilmi badan wiilkaa waxaa loo badan yahay jumhuurtu nabi isxaaq inuu yahay wiilkaasi ugu bishaareeyeen markii ay dhaheen ilmaad dhalaysaa nabiyullaahi ibraahim ilmaad dhale markii ay dhaheen baa la yidhi aad buu ula yaabay wuxuu yidhi aniga waktigan joogo waayeelkahaa waaba nin waayeela baan ahay gabadhii ou qabay oo la dhihi jiray waxa weeye saarana ayaduna sidoo kaleeta baa la yidhi ayaduna saara gabadhii ou qabay oo saara la odhan jiray aad bay macnaha waxa weeye wejiga inta garaacday ay tiri duq weyn oo cajuusaha waayeela baan ahay bal cumriga aan marayno fiiriya
cumriga nabi ibraahim wuxuu markaa maraya baa la yidhi waxa weeye 100 sano ayadana waxaa la sheegaa 99 sano waxaa kaloo la wariyaa nabiyullaahi ibraahim wuxuu marayay 120 sano ayaduna waxay maraysay 90 sano si kastoo tiraaba waa da' weyn war da'daan baan maraynaa baa la yidhi waa kan bay tiri ninkaygii waa duqaa weyn aniguna waa yeel baan ahay markaan baa ilmo nala kugu bishaaraynaya amarka ilaahay miyaad la yaabaa la yidhi awoodda ilaahay ha la yaabin nabi ibraahim waa ka mahdi doonaa markii loo bishaareeyey nicmada alxamdu lilaahi aladii wahaba lii cala alkibari ismaaciila wa isxaaqa anoo imaan doonta ilaahay waxay mahad u sugnaatay nabi ismaaciil iyo nabi isxaaq ii hibeeyey anigoo da' weyn oo odayaho waayeela ilaahay owlaadda i siiyey ayay mahad u sugnaatay inna rabbii la samiicu ducaa'i buu dhihi doonaa marka malaa'igtaas waa bishaareeyeen nabi ibraahim bay khayrkaa ugu bishaareeyeen waa waraysto wuxuu yidhi sha'niga ujeeddada kalood u socotaanna ii sheega markaasi waxay dhaheen waxaan u soconnaa qoom mujrimiin ah oo dadka aad u kharribay oo falfalxumadoodu badato oo laga joogi waayey oo qowmuluut magacooda la yidhaahdo oo aad jaraa'imta ugu dheereeya oo waxa weeye ragga damac ka galayba nuucaa sameeya in aanu soo halaajinno oo aan ku halaajinno dhulka in lala rogo oo weliba waxa weeye dhagxaan cadaaba lagu baabi'iyo mid walbana dhagaxii lagu dili lahaa waa calaamaysan yahayo mid walba dhagaxa loogu talagalay ma dhaafayo musawamatan cinda rabbika lilmusrifiin dhagxaan calaamo mid walba waa loo calaameeyey marka waxaa la yidhi nabiyullaahi luut qoomkiisa waa la halaajiye baa la yidhi malaku jibriil baa loo soo diray baashiisa ayuu dhulkay deganaayeen oo dhan hoosuu ka soo geliyey fakhtalaca quraahum magaalooyinkoodiiu saa hal mar u fujiyey samada ayuu u dhoweeye baa la yidhi samada markay u dhowaadeen oo dhawaqeeda malaa'igta ay samada ay maqlayaan waxay gaarayeen sida imaamu saawi oo tilmaamay waxay gaarayeen qowmuluud 600 oo kun oo qofooday gaarayeen baa la yidhi 600 oo kun oo imaamu saawi gaarsiiyey intaasay gaarayeen intaas oo qofood ah hal mar la halaajiyey eber wax laga reebay ma jiraan waa la baabi'ey cirka markay saa ugu dhow yihiin saasaa loo soo gediyey waa la soo rogayba markay soo daateenna dhagxaan cadaaba ayaa laga daba keenay yaa ka badbaaday waxaa ka badbaaday nabi luut iyo labadii gabdhood ou dhalay nabi luut gabadhii ou qabay xataa waxaa lagu daray dadka la cadaabayo ilahu cadaabtaada naga badbaadi waxaan ku soo marnay suuradda la yidhaha suuratu daariyaat famaa wajadnaa fiiha gayra beytin min almuslimiin hal guri oo muslima maahane wax kale waaba laga waayey hal guri kaliyaa laga helay meeshii dhan gurigaas badbaaday oo muslimka ah waa guriga nabiyullaahi luut iyo labadii gabdhoodou dhalay nabi luut carruur kale ma lahayn 2 gabdhood buu lahaa labadiisii gabdhood iyo asagii baa badbaaday intii kale waa la halaagay gabadhii ou qabay xataa waa lagu daray sawjadiisa maxaa yeele sawjadu waxay ka mid aheed gaalada ayay ka mid aheed nabiyullaahi nuux gabadha ou qabana gaaladay ka mid aheed nabiyullaahi luut gabadha ou qabana gaaladay ka mid aheed labadoodaas oo 2 nabi qabaan in la halaagayna waxaanu ku soo qaadannay suuradda la yidhaha suuratu taxriim ayaanu ku soo marna weeye marka ilaahay aayaadkan sidaas buu noogu sheegayaa waana kuwaan hadda meesha noogu qoran weeye ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wanabi'hum nabi moxamedow ummadda u sheekay can dayfi ibraahiima nabi ibraahim martidiisa ka sheekay id waqti ka sheekay dakhaluu calayhi nabi ibraahim ay u soo galeen faqaaluu waxay dhaheen malaa'igtaasu salaaman waanu ku salaamaynaa salaamid waa ka qaaday qaala markaasuu markii dambe wuxuu yidhi innaa annagu minkum xaggiina wajiluuna waan ka cabsanaynaa war waa idinka baqaynaa buu yidhi cuntana cuni maydiin waktigaad timideenna hadda ma aha wakti caadi ah qaaluu waxay dhaheen laa towjal ha cabsan innaa nubashiruka waxaanu kugu bishaaraynaynaa biqulaamin wiilkaasoo caliimin cilmi badan oo aad u dhugmo badan huwa isxaaqu nabi isxaaqna weeye wiilkaas sida loo badan yahay qaala markaasuu wuxuu yidhi nabi ibraahim abashartumuunii oo ma ii bishaarayseen calaa an massaniya alkibru bacda an massaniya alkibaru aan rabaa calaa an massaniya alkibaru bacda an massaniya alkibaru waayeelnimo iyo weyninku markuu itaabtay
oo aan duqoobay miyaad aniga awlaad iigu bishaaraydeen fa bima tubashiruuna oo maxaad iigu bishaaraynaysaan waktigan waxaa la yidhi nebi ibraahim tacajubkan ou la yaabay ma aha awoodda ilaahay ma inkirsana mana la yaabayo wou og yahay ilaahay inuu awoodo aabba iyo hooyo ayadoon jirin bou canuga ilaahay abuuri karaa fa kayfa min shaykhin faanin wa cajuusin caaqirin duq waayeelah iyo oday waa hore cantatabay ama waayeel noqday ilaahay carruur waa siin karaa waana ka abuurin karaa ina allaha calaa kulli shayin qadiir maxaa yeelay ilmaha ilaahay wuxuuba abuuri karaaba asagoon aabba jirin oon hooyo jirin nebi aadam hooyow lahaa ma aabbuu lahaa waa may nabiyullaahi ciisa ma aabba baa laga abuuray may dhagaxaasu hadduu doono ilaahay carruur ka soo saari karaa ina allaha calaa kulli shayin qadiir kumana cuslaanayso lamana su'aali karo lama odhan karo ilaahay maxaa sidaan u samayday xitaa lama dhihin karo laa yus'al camaa yafcal facaalun limaa yuriid wuxuu doonuu sameeyaa wa rabbuka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaaru ilaahay wuxuu doono oo asagu doorto ayuu macnaha abuuraa sidaas baan ku soo marnay qur-aanka marka nabiyullaahi ibraahim su-aashaan ou leeyahay siday arrintaas ma iigu bishaaraynaysaan waxa weeye waa dabeecada bini aadamka waktigii la bartay oo awlaadda la arkin jiray qofku inuu dhalo lama joogo weeyaan markaasay waxay dhaheen malaa'igtii qaaluu waxay dhaheen basharnaaka bilxaqi xaq baanu kuugu bishaaraynay annagu xaq yaqiin sugan ee habaciidsan waa wax sugan waxa aan kuu sheegayno falaa takun ha noqon min alqaanidiina kuwa quusta oo raxmadda ilaahay ka quusta ha noqon qaala wuxuu yidhi nabi ibraahim waman yaqnadu ama waman yaqnidu yaa quusanaya maba quusto min raxmati rabbihi rabbigiisa naxariistiisa ila adaalluuna kuwa baadiyooba oo aan jaahil ka ah ilaah awooddiisa maahane qof kale raxmadda ilaah ka quusan mayo qaala nabi ibraahim baa wuxuu yidhi famaa khadbukum sha'nigiina iyo arrinkiinu waa maxay amarkiina bal ii sheega aad iigu timideen oo kale ayuha almursaluuna rusushaan la soo dirayay waxay ahaayeen 10 malaa'ig ah ka yarna waa la sheegaa oo dhallinyaro u eg oo aad u qurux badan oo jibriil ou la socdo markaasuu su-aal weydiye wuxuu yidhi maxaad iigu timideen waan ii sheegteen malaa'ig ilaah inaad tihiine ii sheega waxa kalood u socotiin qaaluu waxay dhaheen innaa annaga ursilnaa waxaa naloo soo diray ilaa qowmin qoomkaasoo mujrimiina dembilayaal ah inaan halaajinno waa qowmuluud laakiin waxaan ka reebaynaa ilaa aala luudin nabi luud ahaladiisa kuma jirto waxa la halaagayo innaa annaga lamunajuuhum waan badbaadinaynaa ajmaciina dhammaantood nabi luud iyo wixii raacsan labadiisa gabdhood baa lagu sheegaye oo isagoo u dhalay waan badbaadinaynaa laakiin gabadha ou qabo ila imra'atahu gabadha ou qabo may qadarnaa waan qadarnay oo waan xukunnay in la halaajiyo innahaa iyadu la min alqaabiriina kuwa baaqi noqonaya oo halaaga ku haraya ay ka mid tahay gabadhaas ilaahu naga badbaadi xataa nabi luud gabadha ou qabo qolada ku baaqi noqonaysa halaaga ku haraysa ay ka mid taha la yidhi waxaa la yidhi qadarnaa markay leeyihiin halaaga ilaahay baa qadaray malaa'igtii baa waxay odhanayaan qadarnaa ay qadaynaa annagaa qadarnay hadda ilaahay baa macnaha amray mar haddii ilaahay amray wixii ayagii baa samaynaya waxaa miisaal looga dhigaa baa la yidhi ninka boqorkaa oo kale qola haddii ou diro ee waxay sameeyaan waxay odhanayaan facalnaa sidaas baan yeelnay bimacnaa amarkii boqorkan ku yeelnay ee ka dhiganta tii oo kale wey way tageen marka malaa'igtii falamaa jaa'a markay u tageen aala luudin nabi luud ahaladiisii gurigii nabi luud markay tageen oo nabi luud la kulmeen almursaluuna rusushii la diray nabi luud markay u tageen ou la yaabay qaala markaasu wuxuu yidhi innakum adinku qowmun baa tihiin qoomkaasoo munkaruuna la inkiray war idinma garanaye maxaad doonaysaan qaaluu waxay dhaheen bal ji'naaka waan kuu nimid bimaa shay baan kuula nimid kaanuu ay ahaayeen qoomkaagu fiihi maagaa yamtaruuna kuwa ku shakiya qoomkaagu waxay ku shakin jireen cadaab inay soo degoonayso sow qoomkaagu kuma dhihi jirin cadaabu ma jirto nalama halaagi karo bacsi ma jiro ilaahay waxba naga sow qoomkaagu ma inkiri jirin cadaabta iyo awoodda ilaahay arrintii baan maanta u soconnaa in qoomkaaga la halaago wa aataynaaka waxaan kula nimid nabi luudow
bilxaqi baan kuula nimid shayga aan wadna waa xaq ilaahay noo soo dhiibay oo yaqiin ah qoomkaaga in la cadaabayo wa innaa annaguna la saadiquuna run baan sheegaynaa intaasay malaa'igtii dheheen hadalkaan sheegayno run baan ku sheegaynaa laakiin nabi luudo waan kula talinaynaa maadaama qoomkaaga la halaagayo adigu ka tag waddankan saduum waxaad aadaa waddamada lubnaan uu ku yiilaa la yidhi waddanka uu joogo waxaad aadaa baa la yidhi nabi ibraahim meesha uu joogo shaam la yidhaahdo halkaa aad fa asri guuraysii oo dheelmi biahlika ahalkaaga labadaada gabdhood iyo adigu iska baxa biqidcin qayb oo min alleyli habeenka ka mid a habeen madow ka dheelmada adiga iyo labadaada gabdhood oo ahalkaaga dheelmiyoo wattabic raac adbaarahum raadkooda raac duburkooda raac waxaa looga jeedaa kun min waraa'ihim wasir khalfahum gabdhahaga ha ka horrayne gadaal ka dambeey maxaa yeele qofku markuu kaa dambeeyo oo meel dad markay meel cabsi ah ay socdaan laakiin qofka waxa weeye hogaamiyahooda uu kasii dambeeyo niyadda xogay u dhismayda marka adigu ka dambeeyo maadaama nabiga ilaahay aad tahay ayaga hormari adiguna daba soco si qalbigooda u dego gadaalna ha soo fiirnina baa la yidhi gadaal yaan la soo fiirin maxaa yeele dadka waa la halaagaya aad ka soo tegaydiin walaa yaltafit yowsan milicsan minkum xaggiina axad idinka miduhu gadaal yuusan soo fiirin si uusan u arkin cadaabta ku dhacayda qoomkii qoomuluud wamduu socda oo taga xaysu tu'maruuna meesha laydin amrayo meesha la amra waa xaggee waa waddanka la yidhi aada cabdullahi ibni cabbaas wuxuu ku fasiray waddanka shaam nabi ibraahim baa joogay halka aada baa la yidhi wa qadaynaa waxaan xukunnay oo aan waxyoonnay ilayhi nabiyullaahi luud waxaan u waxyoonnay daalika alamra ilaahay wuxuu leeyahay nabiyullaahi luud waxaan u waxyoonnay daalika ka alamra amarka ah aan u waxyoonnay oo amarkaas la xukumay oo loo waxyooda waa maxay anna daabira haaulaa'i kuwaa ciribtooda maqduucun in la goynayo in la cirib goynayo qoomkaas qolada oo ka soo tego qowmuluud qoladaa ee qowmuluud la yidhaahdo oo nabi luud ka tegey in la cirib goynayo yusta'saluun can aakhirihim xataa laa yabqa minhum axadun musbixiina xaalihin kuwo waa berisanaya waagu markau beryo cawada ka dheelmaa la yidhi waagu markau beryana qof laga reebi maa qoomkaaga eber waa la baabinaya allahuma najina waxaa la yidhi malaa'igtii nabi luud markay u yimideen oo malaa'igtaa nabi luud u yimideen baa la yidhi qowmuluud waxaa dabeeca u aheed dadka martida ah inay faraxumeeyaan dad aad u falfalxun bay ahaayeen waxay maqleen gurigii nabi luud caawo dad baa marti baa yimid dhallinyaro ah oo aad u qurux badan markaasay soo ordeen baa le iyagoo faraxsan ay soo ordeen isku bagaanbegaya oo dhahaya warna keena caawo danteennii waa la gaarayey wa jaa'a ahlulmadiinati yastabshiruun waa soo baxeen iyagoo bishaaraysanaya nabi luuday u yimideen nabiyullaahi luud waa intii aysan malaa'igtu isku sheegin baa la yidhi oo hore markay usoo galeenba markay dadkan baaso ordayo yimaadeen ayuu aad u murugooday oo is yidhi martidan caawa kuu timid ama la fara xumeeya markaasuu la hadlay war qoladaanu waa martidaydii war hay ceebaynina war martida dhib howgeysanina war anigu waa murugoonayaa martidii caawa nabi luud la joogta cawada la fara xumay haddii la yidhaha sharaf darra igu dhacaysa war ilaahay ka cabsada war hay macnaha murjinnina hay hoojinina markaasi waxay ugu jawaabeen sow hadda ka hor kuma aanu dhihin qof marti ah ha marti qaadin haddii aad martida marti qaaddo annagu marti daymayno qofkii yimaada oo nin ah annagaa iskale waa wadanaynaa qowmuluud baa la yidhaahdaa annagu soo kuma dhihin qof ha marti qaadin sow arrintaas kaama anaan reebin annagaa xumaato u geysanayne sow hadda kahor kuma anaani arrinta ha samayn markaasuu yidhi baa le war kuwaan waa gabdhahaygii war gabdhahaygi waa kuwaan war haddaad doontin ayagaan idiin guurinayaa hadda waxaa la yidhi ayagu waa gaale suu gabdhihiis ugu guurinayaa waxaa dhici kartaa la yidhi inuu uga jeedo gabdhahaygaan idiin guurinayaa haddii waxa weeye aad macnaha islaamtaan ama gabdhahayga marka uu leeyahay gabdhaha wuxuu uga jeedaa baa la yidhi ummadda oo markaa isagu uu nabiga u yahay oo dhan ilaa nabi walbaaba yuctabaru aban liqowmihi baa la yidhi nabi walba waxaa loo ictibaariyaa
qoomkiisoo dhan inuu aabba u yahay. marka haddii aad macnaha xaas u baahan tihiin war iska daaya kuwaane gabdhahaan idiin guurinayaa ee waxa weeye in kuntum faaciliina qadaa'a shahwati marka meelaa idiin bannaanin ha aadinina saasuu ku yidhi baa layidhi. warkaasoo dhan waa diideen. nin meelu u caddahay meelu ka madow baa la yidhaahdaa uma muuqato dhiga uma lahan halaag bay macnaha waxa weeye loo qadaray. aayadahaanu sidaas bay noo sheegayaan waa kuwaana. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa jaa'a waxaa yimid ahlulmadiinati magaaladii nabi luud joogay dadkii deganaa saduum waa waddanka lubnaane dadkii joogay baa yimid yastabshiruuna xaalay bishaaraysanayaan ay yimideen ayagoo ordaya oo martida nabi luud u timid malaa'igta ilaah weeye uu ordayoo damcaya inay xumaato u geystaan bay yimideen. qaala nabi luudaa wuxuu yidhi inna haaulaa'i kuwaani dayfii martidaydii weeye falaa tafdaxuuni war hay fadeexaynina hay ceebaynina war martida ii daaya dhib how geysanina. wattaqullaha ilaahay ka yaaba ilaahay ka cabsada walaa tukhzuuni ha i hoojinninoo waryaan dhib la ii geysan. qaaluu waxay dhaheen awalam nanhaka oo sow kaama aanu reebin canilcaalamiina caalamka makhluuqa jooga qof ka mida ha marti gelin sow kuma aanu dhihin. maxaad u marti geliday adaa qaldan annagu qofkii aad marti gelidoo marti ama daynayno awal sow kuma aanu dhihin dad ha marti qaadin. adaa diiday bay dhaheen adaa qaladka iska leh ee annagu waa kuu sheegna. qof magaaladeennan soo gala oo qariiba ha marti qaadin. magaaladeenna qof ha naga soo gelin ama qof bini aadama haw sheegin waxa weeye qof bini aadamaho yimaado waddanka sow kaama aanu reebinoo kuma dhihin ha noo diidin. saasaa lagu fasiraa. qaala wuxuu yidhi haaulaa'i kuwaani banaatii gabdhahaygii weeye war gabdhahaygii waa kuwaani guursada oo xaaraamta how leexanina oo waxa weeye haddaad islaamtaan ayagaa idinku nikaaxinayaa xaas haddii aad u baahan tihiin in kuntum haddaad tihiin buu yidhi faaciliina kuwa samaynaya qadaa'a shahwa. lacamrukadaan qisadii baa la soo dhex geliyey. waxaa la yidhi nabigeennu ilaahay ku dhaartay xayaatadiis ma jiro nabi lagu dhaartay noloshiisa oo nabi moxamed aan ahayn calayhi salaatu wasalaam. saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi ibni cabbaas sida kitaabkan dabariguba uu qorayo wuxuu leeyahay ilaahay raadiha ka noqdee saxaabigaa wuxuu yidhi maa khalaqa allaahu wamaa bara'a nafsan akrama cala allahi min muxammadin sala allahu calayhi wasalama wamaa samictu allaha aqsama bixayaati axadin hayrah. ilaahay ma abuurin naf ka karaamo badan rabbi agtiisa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam. qof ka karaamo badan cindallaahi nabi moxamed ilaahay ma abuurin. wamaa samictu allaha aqsama bixayaati axadin hayrahu. ma maqal ilaahay buu ku dhaaranaya qof noloshiisan ku dhaartay dhahaya oo nabi moxamed aan ahayn ma jira baa la yidhi. sidaa daraaddeed fadliga rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam marka laga sheekaynayo aayaddaani waxay ku jidhaa aayadaha loo soo qaato nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay khaaliq ahoo abuuray sida uu u sharfay oo u qiimeeyey oo agtiisa uu macnaha uga kor yeelay sala allahu calayhi wasalam. lacamruka ay laxayaatuka noloshaada ayay dhaartaydu ahaatay innahum gaaladaani la fii sakratihim wareerkooda ay yacmahuuna ku laalaabanayaan. yacmahuunada waxaa laga cabiraa sakradu horta waxa weeye waa baadi iyo lumid iyo wareer. yacmahuunana yataraddaduun taxayuran way macnaha iyagoo wareersan bay ku laalaabanayaan oo way indhabeeleenoo khayrkii oo dhan iyagoo ka indhabeelay ay baadilkooda iyo lumiddooda gaaladu ay saas ugu dhex laalaabanayaan buu ilaahay leeyahy. lacamruka nabi moxamedow xayaatadaada ay dhaarteedu ahaatay innahum gaaladaani la fii sakratihim wareerkooda lumiddooda iyo baadidooda ee yacmahuuna ku laalaabanayaan iyagoo wareersan oo indhala. gaaladii marka waxa weeye qowmuluud la dhihi jiray waa la halaagay. malakul jibriil baa loo soo diray sida aanu sheegnay waa la baabaash. qaabkii loo halaagay waa nagii hadda soo sheegay dhulkii ee lala rogay. ilaahay wuxuu yidhi fa akhadathum waxaa qabatay assayxatu waxaa la iskugu daray dhagxaan cadaaba qaylo iyo dhulkoo lala rogay intaasaa qowmuluud la iskugu daray acaadana allahu min cadaabih. fa akhadathum waxaa qabatay assayxatu qaylo mushriqiina xaal ay yihiin kuwo
qorax baxsaysanaya. hadda waxaa la awal waxaa la yidhi musbixiina, waagu markuu baryo ayaa la halaagi doonaa. ina daabira haaulaa'i maqduucun musbixiina. subxii baa lagu bilaabay ilaa maalinkii kale qoraxdu markay soo baxdo laga gaaro ay ku socotayna waa la yidhaahdaa. ayagoo qorax baxsaysanayo qoraxdu markaa u soo baxday ayuu halaagii ilaahay oo ku dhacay. sidaas iyagoo ah baa la halaagay qoraxdu markay soo baxaysay. shuruuqu waa waqti qoraxdu soo iftiimayso. fajacalnaa waxaan yeelna buu ilaahay yidhi caaliyaha, dhulkoodii iyo magaalooyinkoodii qaybteedii korayday, saafilahaa hoosteeda baan yeelnay. saafilahaa dhinacii kore baa la hoos mariyey, dhinacii hoosena waa la kor mariyey. bal u fiirso, markii cirkaasaa loo geeyey asaa loo soo rogay. markay soo daateen samada awal loo dhaweeyey. bal u fiirso, samadaa loo dhaweeyey ilaa ay ka arkaan xidigaha, ilaa ay ka maqlaan tasbiixda malaa'igta, ilaa ay uga dhowaadaan samada dhawaqa ka yeera ay maqlaan. markaabaa saa loo soo gediyey. markii la soo gediyey dhagxaan cadaab ah korkooda sidii roob camal, ilaahu naga badbaadi, baa laga daba shubay. wa amdarnaa calayhim, korkooda waxaan ku roobaynay xijaaratan dhagxaan oo min sijiilin, dhoobo la dubay oo naar ah, naarta jahanamo lagu kariyey ka ahaatay. dhoobo naar ah weeyaan, dhagax naareed. ilaahay wuxuu leeyahay inna fii daalika, arrinkaas qowmuluud ku dhacay, la aayaatin calaamooyin baa ku sugan lagu garto awoodda ilaahay, calaamooyin lilmutawassimiina, kuwa wax fiirfiiriya oo naadiriinta ah oo cibro qaata oo caynulbasri walbasiira, bicayni albasar walbasiira, isha iyo qalbigaba wax ka fahma oo mutawasimiinta ah, shay ay wax ku fahmi karaan ayaa qoomkaa ku dhacay weeye. mutawasimiintu dadka nuuca oo mu'miniinta weeyaan, oo ictibaar kale, oo wax fiirfiirinaya, oo wax fahmahaya. dadkaa calaamooyin awoodda ilaah ay ku xusuustaan baa qoomkaas ay arrintaas ku suganoo qoomkaa waxa ku dhacay waa arrin lagu cibro qaado karo. hadda mutawasimiinta sidaas baa lagu fasiray weeye. alwaasim annaadiru ilayka min faraqika ilaa qadamik. ilaahay wuxuu kaloona leeyahay subxaanahu wa tacaala, wa inahaa magaalooyinka ay qoomkaasu deganaayeen, quraa qowmuluud labisabiilin, waddo ayay ku sugan tahay, muqiimin oo muqiimin, waddo macnaha waxa weeye sugan oo nagaatay oo la maro, oo muqiim haabit ah, waddo sugan oo dadkao dhan ay maraan oo qof walba arki karo. qurayshtu markay safrayaan waddo ay mari jireen meesha lagu halaagay ay ahayd baa la yidhi. waa waddo marka ay arkaan oo qurayshtu ay soo maraan, halaagii ku dhacay, dhagxaantii lagu halaagay, waa meel la soo maro. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qoomkan markii ou aaday duulaankii la dhihi jiray qaswadii ahayd qaswatu tabuuka, ayuu nabigeennu ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam. rasuulku wuxuu yidhi qaswa tabuuka markii ou aaday waddanku iyaga lagu halaagay qoomkan asxaabulxijrida noo imaanaya wey. kuwaas waa noo soo socdaan. asxaabulxijrida kuwaan ma aha, qolada uu nabigu habeenkaas sii mari doono, waa gaari doonaa iyaga. nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam halaagka qoladaana waa ka sheekeeyey, qur-aankuna sidaasuu noogu sheegay. inna fii daalika la aayatan lilmu'miniina, arrintaa waxaa ku sugan aayad iyo calaamo dadka mu'miniinta ay ugu sugnaatay. qolada labaad oo la yidhaha qowmu shucayb baan haddana gelaynaa. wa inhu sha'niye kaana asxaabul aykati, hawdka ama kaynta kuwa u saaxiibadaa waxay ahaayeen la dhaalimiin bay ahaayeen. aykada waxaa la yidhaahdaa meesha geedaha badan ay ka baxaan ayaa aykada looga jeedaa. ashajaral geeda isku yimid baa aykada laga cabiraa. waa hawd, waa meesha kaynta ah weeye. meesha ay degaan baa la yidhi aad bay macnaha waxa way u geeda badneed qoomkan asxaabul ayka la yidhaahdo. qoladan asxaabu ayka la yidhaahna waxa weeye waa meel geeda badan bay deganaayeen. qowmu shucayb waa qowmu shucayb, waa qolo marka dhib badan baa la yidhi. nabi shucayb bay beeniyeen. mikyaalka iyo miisaanka waxay aad ugu badnaa jireen dadka inay baagga iyo miisaan ka nuqsaamiyaan. dhaalimiin bay ahaayeen buu ilaahay yidhi. fantaqamnaa minhum, waan ka aar gudanoo waan halaajinay. cadaab ayaa lagu halaajiyey, kulayl ba ayaga lagu halaajiyey, iyo dhulkoo la gelgeshay. kulayl buu ilaahay ku riday 7 maalmood ilaa nafti ay qabato. markaasi maalinkii dambe daruur baa la soo bixiyey sida dallad oo kale ah.
daruurtii bay ay hoos yimideen inta soo ordeen ay hoos u maleeyeen ay soo hoos galeen markay isku soo dhoobteen baa la yidhi oo meesha iskugu yimideen dab holcaya sidii roob camal oo ilaahay korkooda ku soo shubay markaasi kulligood waa gubteen baa la yidhi meeshaasay ku gamaareen bujujuju eber qof kama harin waa baabeen asxaabul ayka la yidhaahdaa waa nabi shucayb qoomkii loo soo diray ayagana noocaas baa lagu halaagay markii ay isku yimideen ayuu dabkaa holcaya ilaahay ku soo diray waa gubteen ilaahay marka wuxuu leeyahay fantaqamnaa waan ka aargudanay minhum qoomkan asxaabul ayka la yidhaah oo nabi shucayb beeniyey iyo qowmuluud waan ka aargudanay labadoodaba wa inahumaa labadaas qoomba la biimaamin imaam bay ku sugnaadeen macnaha dariiq waddadaasoo mubiinin cad waddo waadixa oo macnaha qof walbaaba uu arkayo meeshii lagu halaagay dadka dhan baa arkaya maa marka ku cibro qaataan qolada nabi moxamed beeninaysa calayhi salaatu wasalaam waxaanu gelaynaa haddana qoladay suuraddu ka sheekaynaysay qolooyinka ugu dambaysay waa qolada la yidhaahdo qowmu thamuud nabi saalix baa loo soo diray ilaahay wuxuu leeyahay walaqad xaqiiqanime kadaba waxay beeniyeen asxaabu alxijri waadigii ama macnaha xijrigii meeshii ahayd xijriga meesha la yidhaahdo kuwii u saaxiibada ahaa waddanka yeman bay ku taale meeshay deganaayeen weeyi almursaliina rusushii bay beeniyeen asxaabulxijri waa qowmu thamuud nabi saalix baa loo soo diray xijriguna waxa weeye waa waadi magaalada madiino iyo shaam u dhexayda meel ahu ku yaallaa waddanka yemanta ayuu ku dhex yaal halaagii la halaagay dadka carbeed oo waktiga nabiga joogay way arki jireen raadadkaas way arkayaan baa la yidhi ilaahay wuxuu leeyahy qoladaa ayagana waan halaajinay wa aataynaahum waxaan siinay aayaatina aayaadkeenna fa kaanuu waxay ahaayeen canhaa aayaadka mucridiina kuwa ka jeesta aayaadka waxaa ka mid a hashii mucjisada ahayd oo nabi saalix ay ku xujeeyeen oo la siiyey ku cibro qaadan mayaan hashaasu hal cajiiba bay ahayd dhagax bay ka soo dhex baxday isla markiibay haddana foolatay muuqaalkeeda waad la yaabaysaa wax shabaha lama arko geela xaggiisa caanaheedu qoomkaasoo dhan bay ku filan yihiin maalin ceelka biyihiisa iyadaa cabbayda waxba ka reebi mayso maalinna ayagaa ceelka biyihiisa caba halka maalinba iyagu markay cabayaan ceelka iyadu cabayso iyaday maalayaan qoomka oo dhan caanaheeda ma dhamay karaan qowmu thamuud oo dhan waa hal mucjizaa hadde waa hal mucjizaaho iyaga lagu imtixaamayo ilaahay wuxuu leeyahay aayaadkeennii baan siinay fa kaanuu waxay ahaayeen canha aayaadka mucridiina kuwa ka jeesta wa kaanuu waxay ahaayeen qowmu thamuud yanxituuna kuwa qora min aljibaali buuraha buyuutan guryo ay ka qori jireen buuraha dhagxaanta ah ay guri ka dhex qotaan buurta inta qodaan sida hadda gaalada waktigan joogtaba ay dhagxaanta buuraha jidad iyo guryo uga dhex samaysteen iyo meelo tareemadu maraan ay ka sii samaysteen bay waxay qori jireen waxa weeye buuraha dhexdooda guri bay marka ka dhex samaysanayaan aaminiina xaalihiin kuwa aaminahoo halkaabay degayaan ayagoo u malaynaya weligood inay meesha aamin ku noqonayaan waa la halaagay markay nabi macnaha saalix beeniyeen oo hashii dileen ou yidhi dhowr maalmood baa adduunyada idinkaga laaban oo fara ku tirisa calaamooyinkaa badna arki doontaan nuucaa ah subaxa ugu dambeeyana waa laydin halaagi doonaa buu yidhi ayagoo halkii fafadhiya subaxii dambe malakul jibriil baa ku qayliyey eber naftii baa ka wada baxdayba fa akhadathum asayxatu musbixiina buu ilaahay leeyihi fa akhadathum waxaa qabatay assayxatu qayladii baa qabatay musbixiina xaal ay yihiin kuwa waa beriisanaya waagu markuu beriyey ayaa nafta laga wada qaaday malakul jibriil baa ku qayliyey marka adduunyadii ay shaqaysteen sarihii dheerdheeraay ay sameeyeen godadkii ay qoteen cadaabtii ilaahay kama badbaadin ilaahay wuxuu leeyahay famaa aqnaa kama deeqin canhum xaggooda maa shaygii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada wixii ay kasbadeen guryihii ay dhiseen dhufayskii ay galeen cadaabtii ilaahay markay soo degootay waxaasoo dhanba waxaba waa tari waayeen waktiga ilaah mar hadduu yimaado ma laysdifaacin karo waxbaan isku difaacayaa iyo waxaasoo dhan waxba tari mayso nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi duulaan ou duulo duulaankii ugu dambeeyey oo la dhihi jiray qaswatu tabuuka
sanadkii 9aad buu duulaanka nabigu duulay bisha la yiraahdo Rajabka nabigeena calayhi salaatu wasalaam duulaankaas markii uu u baxay baa la yiri wuxuu sii maray qoomkan hadda aanu sheegayno qoom Thamud la yiraahdo meeshii lagu halaagay oo lagu baabashay oo degi jireen xijriga ahaay waadigii ama toggii oo ay deganaa jireen qoladaani nabigu uu sii maray baa la yiri oo lagu halaagay marka uu sii marayo asxaabta wuxuu ku yiri la tadkhulu ala haula'i alqawm illa an takunu baakina fa in lam takunu baakina fala tadkhulu alayhim an yusibakum mithla ma asabahum ha u gelinina qoladan illa adinku oynaya maahani meesha ay degi jireen oo lagu halaagay adinku cadaabta ila ka oynaya oo khushuucaya maahane si kale ayaan lagu marin haddii aadnaan oynayn oo aadnan walwalsanayn cabsi ilaahay daraadeed meesha ay lagu halaagayaan la gelin oon la marin maxaa yeelay waxa dhici kara dhibkii ku dhacay oo kale in uu idinku dhaco nabigu saas uu yiri calayhi salaatu wasalaam waxa kaloo la wariyaa meesha iyagu ay deganaa jireen baa la yiri wadankoodii qoom Thamud nabigu markuu maraya baa la yiri ceelal bay cabi jireen ayaga naftoodu baa meesha ku yeelay ceelashaas nabigu wuxuu yiri yaan ceeshooda biyo laga cabin yaan xoolaha laga waraabsan yaan biyo laga qaadan markaas ay asxaabtu waxay dhaheen qad ajanna minha wastaqayna ya rasuulallah biyaan ka qaadanay ceeshii qoom Thamud cajiin baan ku qasanay waan waraabsanay waana sidaas baan sameeynayo biyaan ka qaadanay markaas nabigu wuxuu yiri biyaha aad ka qaadateen daadiya cajiinka lagu qasay biyahaas ceelashooda laga qaadayna cajiinkaana hal la daadiyo ayuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waxa biyaha ka cabtaan buu yiri nabi saalix hashiisu ceelka ay naaqatullahi cabi jiray ceelkaas biyaha ka caba oo ka waraabsada xoolaha midka laakiin ayagu kay cabi jireen faryan la saarin buu yiri wa amarahum an yastaqu min al-bi'r allati kanat tariduha an-naaqatu ceel ay hashu ka cabi jiray oo yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam midka biyaha ka doonta laakiin kooda la iska ilaaliyo cajiinkii lagu qasana hal la daadiyo biyihii laga qaatana hal la daadiyo oo yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam wama khalaqna as-samawati samooyinka ilaahay wuxuu yiri ma aanan abuurin wal arda dhulkana ma aanu abuurin wama baynahuma inta u dhaxaydana ma aanu abuurin illa bil haqqi ma hane sikal uma aanan abuurin ciyaar kuma abuurin dhulka ay cirkaan xikmad ayaa keentay abuuridooda wa inna saacada qiyaamu la'aatiyatun wa imaanaysa bu ilaahay leeyahay ee fasfahi safha al-jamiila fasfah dhaaf oo ka jeeso oo saamax gaalada as-safha dhaafidi al-jamiila wanaagsaneed waa intaysan soo dagoon baa la yiri nabiga intaan jihaadka la amrin baa la yiri gaaladan sufahada mucaamalo wanaagsan iska la mucaamalo mar walbana mucaamalo wanaagsan baa nabiga la amri jiray inna rabbaka rabbigaagu huwa rabbigaagu nabi muxammadow al-khallaqu waa midka abuuridda badan al-aliim ee cilmiga badan walaqad xaqiiqanima aataynaaka nabi muxammadow waxaan ku siinay 7 oo min al-mathani kuwi la labalabeeye kamida 7 la labalabeeye waxa looga jeedaa faatixada waa 7 aayadood waa la labalabeeyana la celceliyay weey oo salaada ayaa lagu soo celceliyaa ragcad walba lagu aqriyaa xadiis waxa ku soo arooray nabigeenu inuu yiri calayhi salaatu wasalaam shaygan laysiyo mathaniga 7 mathaniga waa faatixada oo nabigu yiri quraanki wal quraanana waan ku siinay quraanki al-cadiima weynaa quraanka cadiimkana waan ku siinay nabiga ilaahayo waa loogu man nabigeena nicmada in la siiyay ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu bishaaray la tamudanna ha u taagin caynayka labadaada indhood ilaa maa maladii shaygii matacnaa bihi aan maaga ugu raaxaynay aswaajan sinfiyaal iyo nuucyo oo minhum asnaaf oo minhum gaalada ka mida qaybo gaalada ka mida waxyaabaha aan siinay iyo adduunyada aan siinay indhahaaga ha u taagin waxba ha ku falan waxa xunka ah oo gaalada aan siinay waxa aan ku siinay baa ka wanaag badan hadda quraanka ilaahay qof la siiyey wax ka wanaag badan miyaa jira waa maye sayyidina Abu Bakar wuxuu dhihi jiray man utiya al-qur'aanu fara'a anna ahadan utiya min ad-dunya afdala mimma utiya faqad qara 'aziman wa 'azzama saqiran qofkii quraanka ilaahay siiyo
oo qof adduunyo la siiyey ummooda inuu ka wax badan yahay shay ilaahay wax weyn ku tilmaamay ayuu yareeyey wax yar oon qaymo lahaynoo adduunyaana wax weyn buu ka dhigay marka qur-aanka ilaahay qofka haddii ilaahay ou siiyo ama diinta ilaahay ou ku siiyo wax walba oo lagu siiyo iyadaa ka wanaagsan wuxuu dhihi jiray sayidina cali ibnu abi daalib saxaabiga la yidhaahna ilaahay raadiha ka noqdee radinaa qismata aljabbaari fiina lanaa cilmun walilacdaa'i maalun radinaa waxaanu ku raadi noqonnay qismata aljabbaari allaha jabbaarka ah qaybta oo wax noo qaybiyey annaga iyo acdaada ilaaha wax noo qaybiyey raadi baan ku naha buu yidhi lanaa cilmun ilaahay cilmi buu annagana siiyo cilmi baan leenahay walilacdaa'i maalun acdaada ilaahayna adduunyay haystaan marka adduunyo iyo aakhiro tee fiican aakhiraa fiican mu'miniinta ilaahay aakhirou siiyey dadka kaleetana waxa weeye ilaahay wuxuu siiyey adduunyo waxaan qaymo lahayn adduunyana hadday ku qaymo dhammaan laheed garab kaneeco ilaahay wuxuu yidhi maa saqaa kaafiran minhaa jircata maa'in gaalku hal maalin kale ah hal maalin ama hal mar biyow ka bado xataa lagama siiyeen gaalada waxay adduunyada u heleen waxa weeye inaan adduunya qaymo lahayn ee hadday qaymo lahaan laheed waxa weeye hadday qaymo lahaan laheed baa la yidhi sidaas weeye hadday qaymoba lahaan laheed dadka mu'miniintaabuu ilaahay ku amaalmarin lahaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala walaa taxzan nabi moxamedow ha tiiraanyoon calayhim gaaladan hadday ku rumay waayaan ha ka murugoon wakfid raarici janaaxaka garabkaaga iyo dhinacaaga lilmu'miniina mu'miniinta u raarici mu'miniinta u jilacsanaaw waqul waxaa tidhaha innii anugu annadiiru midka digaya baan ahay oo cadaabta rabbi idinkaga digaya almubiinu ee cad qur'aanka waan soo dejinnay dushaada nabi moxamedow kamaa anzalnaa sidii aan u soo dejinnay oo kale qur'aanka ama cadaabta cala almuqtasimiina kuwii qaybsanayey muqtasimiinta ahaa oo kutubtooda qaybiyey qaar bay ka rumeeyeen qaar way beeniyeen nabi moxamed awsaaftiisa qaar bay qariyeen aayatu rajmigay qariyeen yahuudoo kale towreed qaar bay rumeeyeen wixii muraadkooda waafaqa qaarna waa macnaha beeniyeen wixii muraadkooda khilaafa nasaartoo kaleeto qur-aankii bay qaybiyeen marka ikhtisaam bay sameeyeen ama ikhtisaamka waxaa looga jeedaa waddooyinkii makay isku kala qaybiyeenoo waqtiyada xajka la gaaro ay inta waddooyinka qolaba qayb istaagto bay nabi moxamed dhihi jireen ha laga hor yimaado ma jiro ay odhan jireen baa la yidhi qur-aanka waan kugu soo dejinnay kamaa anzalnaa sida aan ugu dejinno oo kale cala almuqtasimiina kuwii qaybsanayey oo macnaha qur-aanka kuwii qur-aanka qaybinayey oo qayb u kala qaybinayo oo kale sidaan ugu soo dejinnay ayaan adigana kuugu soo dejinnay alladiina kuwaasoo jacalulqur'aana qur-aanka ka yeeleen cidiina gaballo ajzaabi ka yeeleen waxay gaballo uga yeeleen macnaha qaybo ay u kala qaybna way rumaynayaan qayb waa beeninayaan cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi aamanuu bibacdin wa kafaruu bibacdin buu yidhi aayaddan waxaa la yidhi waa tasliya nabigaa la sabar siinaya calayhi salaatu wasalaam qoomkaaga ku beeninayo o ku dhahayo waa sixiroole waa gabyaay waa hadalka qur-aanka u wataa waa asaadiiru alawaliin gaaladii horay la mid yihiin oo qur-aanka iyaguna sidaa u beenayey marka ha ka murugo nabiga ilaahayo fa wa rabbika ilaahay wuxuu rabbigaagu ku dhaartay nabi moxamedow lanas'alannahum gaalada weydiine ajmaciina dhammaantood qiyaamada waa weydiinaynaa qaladka ay galeen su-aala taqriic wa tawbiiq baa loo su-aalayaa maxaad qur-aanka u beenideen nabi moxamed maxaad u diideen waa la dhihi doonaa haddaba waxaa la yidhi sow ma anu soo marin walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuun fa yowmaidin laa yus'alu can denbihi insun walaa jaannun aayadahaas waxba lama su-aalayo suu lama dhihin haddana waxbaa la su-aalaa baa laleeyahay waxaa lagu daaweeyey macnaha su-aasha la weydiinaya waxa weeye qiyaamada amaakinteeda ayaa dhowr nuuca meelna waxbaa lagu su-aalayaa meelna wax lagu su-aali maayo cikrama sidaasuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaasna wuxuu yidhi aayadaha dhahaya gaalada wax lama su-aalayo su-aalu istikbaarin waisticlaamin baa looga jeedaa macnaha ii sheega lama odhanayo ilaahay dembigay galeen cilmiba u leeyahay aayadda dhahayda waxbaa la su-aalayaana waa su-aalu taqriicin wa tawbiiqin waa canaan oo lagu canaananayo oo lagu cadaabayo baa looga jeedaa weeye saasay labada su-aal kale yihiin oo midna la yidhi gaalada la su-aali maayo midna waa la su-aala la yidhi fa wa rabbika rabbigaagan ku dhaartee ilaah baa isku dhaaranaya
lanas'alannahum gaalada waanu su'aalaynaa ajmaciina gebi ahaantood dembigay galeen camaa shaygii baanu su'aalaynaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal fala nabiga waxaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam fasdac la jahar nabiga ilaahayow fasdac la jahar baa la yidhi bimaa tu'maru nabiga ilaahayow waxa lagu amrayo la jahar nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi markii hore dacwada waxay ku bilaabatay siran 3 sano waxaa la yidhi waxa weeye waxay ku socotay siran bay ku socotay kabacdi baa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii islaamku xoogaystaa la jahar dacwada fasdac la jahar bimaa tu'maru shayga lagu amrayo wa acrib ka jeeso cani ilmushrikiina gaaladana ka jeeso hadalkay dhahayaana ha milicsan kuwaa xuxunka ah oo qur-aankii waxa weeye qaybqaybiyey oo isku dhaarsaday inay qaladka sameeyaan cala almuqtasimiinta waxaa kaloo lagu macneeyaa isku dhaarsi ay macnaha waxa weeye iqtisaam iyo isku qaybin oo isku dhaarsadeen waxa inay dembigaa sameeyaan isku dhaarsadeen inna annagaa kafaynaa kaa kaafinayna nabiga ilaahayu almustahzi'iina kuwa kugu jeesjeesaya oo acdaada ah waanu kaa kaafinaynaa waxay ahaayeen ilaa 5 nin oo madaxda quraysheed ah nabi maxameday mar walba ku jeesjeesaan ilaahay baa wuxuu ballan qaaday in uu ka kaafinayo aladiina kuwaas jeesjeesayo yajcaluuna yeelaya maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan aakhara ilaah kale yeelayaan fa sawfa dib dambey yaclamuuna ogaa doonaan amarkoodu meeshuu ku dambeeyo qoladaas waxaa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay u ballan qaaday inuu ka kaafinayo oo dhowrka ah waxay kala ahaayeen waxaa ka mid ahaay gaal la yidhaha weliid binu muqiiro ayaa ka mid ahay baa la yidhi waxa weeye weliid baa ka mid ahay waa halaag baa ku dhaco wuu halaagsamay leebkiisa waxaa la yidhi baa waxaa ka dhacay shayaalkii oo isagoo maradiisa jiidaya ayaa leebkiisii marada inta ka dhacay buu u galay baa la yidhi markaasuu in uu foorasado oo iska siibo oo iskala weynaaday lugtay ka mudday sidii baa macnaha balaa'i ugu dhacdo oo ku halaagsamay caas binu waa'il baa ka mid ahay daabadiisa ayuu waxa weeye waxaa ka soo baxday baa la yidhi daabadiisa ayuu qaatay baa la yidhi baadiyaha meelahu la tegey qodax baa ka mudday halkaa lugta ah qodaxda inuu iska siibo iskala weyn yahay markii dambe meeshii baa barartay sidiiba u dhintay gaal la yidhaha cadiy ibnu qays baa ka mid ahaa waxaa la yidhi imtakhada khaydan faqatalahu ay saara imtakhada qayxan baan rabaa maal buu macnaha waxa weeye hunqaacay ay saara alqayxu yajrii min anfihi maal baa sankiisa ka timid markii dambe waxa weeye cudur baa sidaa ugu dhacay oo sankiisa ka yimid naftiina saasay uga baxda markii dambeeto gaal la yidhaha aswad binu mudalib ayaa ka mid ahaa isagana waxa weeye indhala-aan baa ku dhacday il baa nabar ka gaaray oo geed yar waxa weeye qashinkiis baa uga dhacay ishii baa sii xanuuntay madaxii dhan baa xanuunay derbiyadu madaxa la dhici jiray baa la yidhi ilaa markii dambe uu ka baktiyo gaalka la yidhaha aswad ibnu cabdiyaquuf baa ka mid ahaa caloosha looga dhegay markii dambena sidaaba u dhintay gaalo ilaa 5 ah oo nabiga aad u dhibi jira bay ahaayeen oo ku jeesteesi jiray ilaahay baa ballan qaaday oo ku yidhi nabi maxamedow annagaa kaa kaafinayna innaa kafaynaaka almustahzi'iina waanu kaa kaafinay baaba la yidhi ama waan kaa kaafinaynaa kuwa kuu jeesjeesaya aladiina yajcaluuna maca allaahi ilaahan aakhara fa sawfa yaclamuuna walaqad xaqiiqanimee naclamu waxaan ogsoonnahay nabi maxamedow annaka adugu yadiiqu sadruka xabadkaagu inuu ciriiryoomayo oo aad macnaha aad uga welwelayso bimaa yaquuluuna gaaladu waxay ku qowlayaan oo beeninta iyo dembiga ah waad ka xumanaysaa fasabbix tasbiixso ilaahay u tasbiixso bixamdi rabbika rabbigaaga mahaddiisa adigoo ku dheehan waxa weeye tasbiixda ilaahay salaada dikriga ilaahay u carar tasbiixda rabbi adoo ku dheehan ee xamdiga rabbi adigoo ku dheehan tasbiixso wa kun ahaw min assaajidiina kuwa sujuuda oo salaada ilaahay badiya oo ilaahay mar walba caabudaya kuwaa ka mid noqo oo ilaahay daacadiisa u taagan wacbud rabbaka nabi moxamedow rabbigaaga caabud xataa ya'tiyaka alyaqiinu
ilaa yaqiintu kaaga timaado. yaqiinta waxaa looga jeedaa mawdka ilaa uu kaaga yimaado. maxaa yeele mawdku waa yaqiin oo qofka xaqiiq ahaan wixii dhacayay ayuu markaa hubsanaya. halkaas waxaa noogu dhammaatay suuradda la yidhaahdo suuratulxijri. ilaahay ha nagu anfaco, ajirkeeda ilaahay hana siiyo, dembigeenna iyo dembi waalidkeen ba allaha dhaafo. ilaahay suuraddan ha noogu daro suuradaha qur'aanka kariimka oo maalinta qiyaamo noo shafaaco qaadaya, noo marakacaya, ilahay agtiisa nagu anfacayana ilahay ha noogu daro. xifdigeeda iyo barashadeedana allah ha noogu irsaaqo. darsigeeda caaw intaasaan kusoo koobaynaa. wallahu waliyu tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.